بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 242 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه البزار، والحديث صحيح لغيره. إخوة الإسلام والإيمان، maantay taariikhda islaamka ay tahay 4 bishii 9 ramadaan sanadka 1441 isla markaana waafaqsan 27 bishii 4 sanadka 2020. waxaanu ku jiray duruustii ramadaanka iyo axaadiidtiisii. waxaanu soo qaadanay waxyaabaha aanan qofka soonka ka jebinin iyo wixii ku saabsanaa. bal waxaan u yarjeesanaynaa hadda fadaa'ishiisa, walow xadiidka ugu horreeya aan ku bilownay. fadaa'ishiisa iyo waxyaaba ku saabsan baan u yarjeesanaynaa. abu saciid alkhudri radi allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka warinaya xadiid cadiima. wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam: ina lilaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaaday cutaqaa, kuwa cutaqoo naarta laga xoreeyey fii kulli yowmin wa leyla, yacni fi ramadaan. maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana ilaahay wuxuu leeyahay dad uu naarta ka xoreeyey. maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana dad uu naarta ka xoreeyey baa jirta oo muslimiinta ah. waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, taa waa bishaaro wey. maalin kasta iyo habeen kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala dad buu naarta ka xoreeyaa bisha ramadaan. waxaa kaloo nabigu noo caddeeyey bishaaro labaada: wa ina likulli muslimin, qof kasta oo muslima waxaa u ahaaday fii kulli yowmin wa leylatin, maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana dacwatan, duco mustajaabatan, la aqbalay. dacwo mustajaaba oo la aqbalo ayaa u sugnaatay. ikhwat alislaam walimaan, xadiidkan wuxuu ka mid yahay fadaaisha ugu waaweyn ee bisha ramadaan maaragtay ay wadatay ka mid tahay. bisha ramadaan wuxuu xadiidka noogu sheegay nabiga 2 qaybood. qayb wuxuu noogu bishaareeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana dad uu naarta ka xoreeyey buu alla leeyahay, oo naarta uu ka xoreynaya. waxaa kaloo bishaaro kaloo labaada: qof kasta oo muslima bisha ramadaan, dabcan waa qof hade soomahayo toosan wey, ama qof aan soomaynin oo faasiq, waxba ramadaan fadligiisa kama hele. qof kasta oo muslima oo soomahaya, waajibaadkii la iman haya, bisha ramadaan maalin kasta iyo habeen kasta wuxuu leeyahay dacwo iyo ducuu leeyahay mustajaabo oo la aqbalayo. marka adiga bal takhayul, malaayiinta muslimiinta ee soomaysa, qof kasta maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana duca laga aqbaluu leeyahay. mar hadday sidaa tahay bishaaro nebi maxamed uu noogu bishaareeye ay tahay, akhi filaahi wa ukhti filislaam, ha ku bakaylin. mar kastood afuraysi ilaahay bari, ama maalinkii oo dhan saacaddii doonta ha ahaato. maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana ducaad leedahay ilaahay uu ka aqbalayo, haddii shuruudihii laga helo wey. idan ducadaada khaas ka dhigo oo caam ka dhig, oo mar muslimiinta si guud ahaaneed ugu ducee, mar si khaas ahaaneed adigu u ducayso. idan maalin iyo habeenba duca ilaahay aqbalaad leedahay, duca mustajaaba. waa qof kasta oo muslima bisha ramadaan maalin iyo habeenba duca wuxuu leeyahay la aqbaluu leeyahay. waxaa maca alasaf shadiid in badanoo muslimiinta ina warba kayni waxaas. idan meeqa ducaa dhaafaysa marka oo laga aqbali laha, warba kamu hayaba. idan fursada aan ka faa'iidaysano, maalin kasta oo ramadaana iyo habeen kasta oo ramadaana duca ayaan leenahay ilaahay naga aqbalayo. idan ilaahay aan barina wax badan, aan ducaysano. nafteenna khaaska, umuurahaada khaaska iyo waxyaabaha khaaska kuwa oo haddee khayra caamna aan ka dhigno muslimiintii, iyo si guud ahaaneedna aan ugu ducayno ummadda muslimiinta. idan waa bishaaro weeye. ina lilaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay waxaa u sugnaaday cutaqaa, kuwa cutaqa oo naarta laga xoreeyey fii kulli yowmin wa leyla, yacni fi ramadaan wey. ayuu xadiidka qoraya, weliba saas u fasira, yacni fi ramadaan
culimmadu qaar waxay leeyihin waa abu saciid alkhudri baa tafsiirka iskale, qolana waxay leeyihin ma raawiga kasii dambeeyaa iskale. almuhim xadiidka ayay ku dhex jirtaa. habeen kasta iyo maalin kaste oo ramadaana ilaahay cutaqa naarta laga xoreeyey buu leeyahay. waa bishaaro wey cadiima inuu habeen kasta iyo maalin kasta ilaahay muslimiintiisa ummadiisa addoomihiisaas inuu naarta ka xoreeya qaybo ka mida. wa ina likulli muslimin muslim kastana wuxuu leeyahay oo u sugnaaday fi kulli yowmin wa leylatin maalin kasta iyo habeen kastoo ramadaana dacwatan duco iyo allabari mustajaabatan la aqbala ayuu leeyahay. idan fantahisuha wey ka faa'idaysta fursaddaa wey. haddii lagu siiyo lagu yidhi maalin kastoo ramadaan iyo habeen kastoo ramadaan duco maqbuulo ah ayaa ilaahay ku siiyey, idan aan ku dadaalo. maalin kastoo ramadaan intaasoo jeer ilaahay bari, habeenkii ilaahay bari, maalinkii adoo maartay ilaahay bari, tu khaas iyo tu caamaba. idan waa fadaa'ilka uu ramadaanku fadaa'isha iyo qiimaha uu bisha ramadaan wata wey. xoreynta naarta la iska xoreynaya bisha ramadaan bay khaas u tahay. habeen kasta iyo maalin kasta oo ramadaan ilaahay ummadiisa maartay addoomihiisa uu naarta ka xoreynhayo. habeen kasta iyo maalin kasta oo ramadaan ana muslimiinta qof kasta uu duco khaasa, duco mustajaaba uu leehay. waa fadaaisha ramadaanka uu leeyahay wey. idan ikhwatii fillahi wa akhawatii fi lcaqiida, si ducadana looga aqbalo, ducadu shuruudo leh, aqbalkeeda shuruuday leedahay. si ducadana looga aqbalo inaanu ku dadaallo waxyaabaha shuruudaha ducada lagu aqbalo, oo waxaa kamid a inaan macaasida ka fogaano, waxaa kamid a inaanu wax maaragtay banaan ilaahay aan ka barino, waxaa kamid a si usluuba oo maaragtay ikhlaasa inaan ilaahay u barino oo maaragtay daacadnimo ah, inaan aadaabta alla bariga aan hagaajino. waxyaabahaasoo dhan baa kamid a ducada qofku markuu ilaahay baryahayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbalo. idan waa fadaa'il cadiima weeyaan oo aad iyo aad u qiimo badan, shahrulfadiil ay wadato wey. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa natusa nuuna irsaaqa xaqa raacitaankiisa bisha ramadaan kuwa ilaahay naarta ka xoreeyey ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu daro. bisha ramadaan ducooyinkaan ilaahay baryeenno inuu ilaahay subxaanahu watacaala ducooyinkaanaga uu ilaahay aqbalo. qof kastoo muslimahow markaa aan bishaa ka faa'idaysano insha allahu tacaala. waxaa kaloo walaalaha cudurdaar aan u qadimahayaa, waagi hore xadiidka qabla ramadaan aroor horaan soo diri jiray. hadda ramadaan baa yimid, maalinkii maan ku dadaalahayaa ama nis hore ama nis dambe waxay noqotaba kolba waqtigan jaanis u helo inaan soo diro insha allahu tabaaraka wa tacaala. hal mar baan xadiidka ku celinhayaa. alxadiidu 242 can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina lilahi tabaaraka wa tacaala cutaqaa fi kuli yowmin wa leylatin yacni fi ramadaan waina likuli muslimin fi kuli yowmin wa leylatin dacwatan mustajaaba rawaahu lbazaar fi musnadihi walxadiidu saxiixun ligayrihi. xadiidkaas waina likuli muslimin fi kuli yowmin wa leylatin dacwa mustajaaba u yihi muslim caam laga dhigay. riwaayaadka kale waxaa soo arooray waina likuli cabdin minhum dacwatan mustajaaba. waina likuli cabdin minhum oo wuu khaas yeelayo kuwa ilaahay habeen kasta maalin kasta naarta uu ka xoreynhayo addoon kastoo ayagaa ka mid a dacwo mustajaab uu leeyahay. xadiidkaana wuu qeyday, kan laakiin mutlaq buu ka dhigay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqa nadsanuun irsaaq xaqa raacitaankiisa. hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.